kulanti wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijkeenan xogaha dunida ee aan kusoo gudbino warbixinada Soomaalida iyo xogta caalamka ee degal kasta. barnaamijkeenan waxaad ku dhageysan doontaan qodobo ay ka mid noqon doonaan warbixintii ugu horeysay oo shaaca ka qaadaysa 4 nin ee ka dambeeyay dilkii Jamaal Khashoggi oo markii ugu horeysay macluumaadkooda si cad loo soo bandhigay iyo tababarka ay ku qaateen gudaha dalka Mareykanka ee uu ka dambeeyay. warbixin ayaad dhageysan doontaan. Iran ayaa sheegtay inay fashilisay weeraro ay ku qaaday xarumaha Nucliyeerka ee dalka Iran, dalka Israa'iil iyo dalka Ruushka oo ku dhawaaqday inay diyaar u tahay inay isticmaasho awoodeeda Nucliyeerka kadib markii ay isku dhaceen diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka. sidoo kalena ay maraakiibta dagaalka ee dalka Britain ay gudaha u galeen dalka Ruushka iyo Ruushka oo digniinta ugu adkayd uga jawaabtay iyo xogo kale ayaan idinku soo gudbin doonaa qaybaheenan warbixinada dunida. aan ku bilownaa wargeyska ka soo baxa Mareykanka ee New York Times waxa uu qoray warbixin sheegaysa in 4 ka mid ah kooxdii ka qayb qaadatay dilkii loo geystay Jamaal Khashoggi wariyay lagu dilay qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul in lagu soo tababaray kooxdaasi dalka Mareykanka. wariyay Jamaal Khashoggi oo ahaa nin caan ah oo ka soo horjeeda siyaasadda boqortooyada Sacuudiga ayaa bishii Oktoobar ee sanadkii 2018 lagu dilay gudaha qunsuliyadda Sacuudiga ay ku leedahay Istanbul, waxaana tababarka 4 qof lagu siiyay gudaha Mareykanka, waxaana ansixiyay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka sida uu ku waramay wargeyska oo soo xiganaya dukumeentiyo iyo waradiyo sirdoonka ah. waxaa tababarka bixisay koox lagu magacaabo Tier 1 Group oo fadhigeedu yahay Arkansas oo ay leedahay shirkadda arrimaha amniga u qaabilsan oo lagu magacaabo Xarumaha Capital Management. sida uu sheegayo wargeyska, ujeedada raggani loo tababaray halkaas waxay ahayd inay difaacaan hogaamiyayaasha Sacuudiga. Neil Price oo ah afayeen u hadlay waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in haatan uusan ka hadli karin eedeymaha ku aadan dilka Khashoggi ee uu qoray wargeyska. wuxuu sheegay in siyaasadda Mareykanka ee ku aadan Sacuudiga ay ku salaysan tahay ilaalinta sharciga iyo xuquuqda aadanaha. dowladda Sacuudiga iyo shirkadda Xarumaha Capital Management kama aysan hadlin warbixintani. warbixin uu shaaciyay sirdoonka Mareykanka bishii February ee sanadkani ayaa waxaa lagu ogaaday in amiirka dhaxal kale ee Sacuudiga Mohammed bin Salman uu ansixiyay dilka wariyaha qurbajooga ahaa ee Sacuudiga Jamaal Khashoggi sanadkii 2018. warbixinta oo uu shaaciyay maamulka Biden ayaa waxa ay tibaaxaysay in amiirku uu ansixiyay qorshaha in la soo gabagabeeyo oo la dilo nolosha wariyaha u dhashay dalka Sacuudiga oo saldhigiisu yahay waddanka Mareykanka. waxayna ahayd markii ugu horeysay ee warbixinada Mareykanku ay si cad u sheegaan magaca amiirka dhaxal sugaha inuu ka dambeeyay dilka ka oo diiday inuu amray dilka Khashoggi. waxaa la dilay xilli uu booqanayay qunsuliyadda Sacuudiga oo ku leeyahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. warbixinta ayaa sidoo kale waxaa lagu magacaabay shakhsiyaad ku lug lahaa ama mas'uul ka ah dhimashada Khashoggi. hase yeeshee warbixintu waxay leedahay ma ogin muddada qorsheyntu ay qaadatay dadkii ku lug lahaa in dilkaasi ay ka dambeeyaan. mas'uuliyiinta Sacuudiga iyo waxa dilka Khashoggi ay ku eedeeyeen inuu ka yimi howlgal damiirka ka fog oo ay qaadeen kooxo sirdoon ah oo loo diray in wariyaha ay dib u soo celiyaan boqortooyada, iyada oo maxkamadda ku taal waddanka Sacuudiga ay maxkamadaysay bishii Sebtembar ee sanadkii hore xukun 20 sannadood ah oo ay ku riday 5 qof kadib markii ay ka laabatay xukun dil ah oo hore ay ugu xukuntay. isagoo ka jawaabaya warbixinta New York Times, Bremer ayaa xaqiijiyay doorka shirkaddaasu ay ku leedahay tababarka 4 xubnood oo ka tirsanaa kooxda Jamaal Khashoggi ka dambeeyay dilkooda sanadkii hore. jawaab uu ka bixinayay su'aalaha xubnaha Koongareeska taas oo qayb ka ahayd magacaabistiisa xilka sare ee wasaaradda gaashaandhigga ee Pentagonka ee maamulkii Trump sida laga soo xigtay New York Times. laakiin sharci dejiyaasha Mareykanka weli ma helin jawaabahani sababtoo ah maamulkii Trump uma muuqan in Koongareeska uu diro madaxa shirkadda ee lagu eedeynayo inay tababartay kooxda. wuxuu sheegay in wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo hay'adaha kale ee dowladda ee Mareykanka ay mas'uul ka yihiin turxaan bixinta ciidamada shisheeyaha ee lagu tababarayo gudaha Mareykanka. dhanka kale, ilaha warbaahineed ee ku dhow hay'adaha amniga Iran ayaa sheegay in mas'uuliyiinta dalkaasi ay fashiliyeen weeraro curyaamina
oo lagu soo qaaday barnaamijka nukliyeerka rayidka iyadoo aan laga bixin faahfaahin dheer. wargeyska Noor News oo ah wargeys la rumaysan yahay inuu ku dhow yahay golaha sare ee amniga Iiraan ayaa ku waramay in weerarka la fashiliyay ka hor inta uusan waxyeelo u geysan dhismaha. waxay intaa ku dareen in kiiskani hadda baaritaan lagu hayo. mar wax laga weydiiyey inuu ka hadlo sarkaal ka tirsan Iiraan ayaa sheegay in la eegayo warbixinta website-ka. sarkaalkan ayaa codsaday inaan magaciisa la shaacin sababo la xidhiidha inaan loo ogolayn in arrintani uu soo hadal qaado. wakaaladda wararka Iiraan ee isna ayaa sheegtay in dhismaha la bartilmaameedsaday oo ku yaala meel ku dhow magaalada Karaaj oo 40 kiiloomitir galbeedka ka xigta caasimadda Tehran. website-ka wargeyska dawladdu leedahay ee Iiraan ayaa daabacday in isla warbixintaasi iyadoo aan bixin faahfaahin dheer xilliga weerarka. telefishinka Iiraan ayaa sidoo kale warbixinta sii daayay subaxnimadii Arbacadii, wuxuuna ku sheegay howlgal curyaamina oo ka dhana mid ka mid ah dhismooyinka ururka tamarta atomikada ee Iiraan ayaa la fashiliyay. weerarkani ma sababin waxyeelo maaliyadeed iyo mid maadi ah toonna iyo mid bini'aadanimo. Iiraan waxay ku qeexday weerarkani mid argagixiso nukliyeerka taa oo sare u qaadaysa xiisadda gobolka xilli quwadaha caalamka iyo Tehran ay wada hadallo lagu soo noolaynayo heshiiska nukliyeerka ee Iiraan ee 2015 ay ku leeyihiin magaalada Vienna ee Austria. Israa'iil ayaa la rumaysan yahay inay fulisay weeraradan curyaaminta ah inkasta oo aysan si rasmi ah u sheegan. ra'iisul wasaaraha cusub ee la wareegay talada dalka Israa'iil ee xagjirka ah Bennett ayaa dhowr jeer ku hanjabay inuusan ogolaan doonin in Iiraan ay yeelato barnaamij nukliyeer, isagoo ugu baaqay Mareykanka inuu dib uga laabto dib u soo noolaynta barnaamijkaasi. in madaxweynaha cusub ee Iiraan ee la doortay Ibrahim Raisa uu khatar ku yahay amniga gobolka, isla markaasna uu yahay shakhsi ku adag in ay Iiraan hesho awoodda nukliyeerka. warbixinada kalena Ruushka ayaa ku dhawaaqday in ciidamadoodu ay qabteen diyaarad sahana oo Mareykanku leeyahay ayna rideen rasaasta digniinta hore. Ruushka ayaa sheegtay in sidoo kale dalka Ingiriisku ay ku xadgudubtay biyaha Moscow kadib markii ay galeen maraakiibta wax burburiya biyaha badda madow ee dhanka Ruushka, iyadoo sheegtay Moscow inay u yeedhayso danjiraha u fadhiya dalka Britain Moscow si wax looga weydiiyo dhacdadani oo ay ku tilmaantay tii ugu horeysay nooceeda. waxay sheegtay Moscow inay diyaar u tahay inay istifaacdo iyadoo halka u dirtay maraakiibta wax burburiya iyo diyaaradaha shaqooy si ay uga jawaabaan dhacdadani ay ku eedeysay in maraakiibta Britain ay ku xadgudbeen dhulkeeda. wasaaradda difaaca ee Russia waxay sheegtay Arbacadii in diyaaradaha dagaalka ee Ruushka ee Shaqooy ay qabteen diyaaradaha istaraatiijiga ee Mareykanka oo saanahayd meel u dhow badda madow, ayna u yeedhi doonaan safiirka Britain u fadhiya dalkaasi. waxayna sidoo kale ay ka dhawaajisay inay diyaar u tahay adeegsiga hubka nukliyeerka si looga jawaabo gardarro kasta oo military. hadalkani ayaa yimi kadib markii wasaaradda difaaca ee Russia ay ku dhawaaqday in maraakiibta dalka Russia iyo diyaaradaha Shaqooy ay rideen digniin arrimaha difaaca ah. waxayna sheegeen in markabkooda uu galay biyaha badda Russia ee badda madow oo u dhow xeebta Crimea. wasaaradda gaashaandhigga ayaa tiri bayaan ay soo saartay in markabkooda uu galay ee Ingiriisku yahay xuduudda Russia oo qoto dheer qiyaastii 3 kiiloomitir, iyagoo aan ka jawaabin digniinta ay bixisay Russia. wasaaradda difaaca ee Russia ayaa u yeedhay u qaybsanaha militariga ee safaaradda Ingiriiska ee Moscow, waxayna ugu baaqday Britain in baaritaan qoto dheer ay ku samayso habdhaqanka halista ah. dhanka kale wasaaradda arrimaha dibadda Ruushku waxay u tixgelisay in dhacdada daandaansi cad oo Ingiriiska ah oo ku tumanaya sharciga caalamiga ah. Moscow waxay ku sheegtay tallaabadani inay tahay mid aan horey loo arag, maadaama Ruushka uu u arkayo dhaqdhaqaaqani ee ciidamada NATO inay diyaarinayaan dhacdo dagaal iyagoo la kaashanaya dalka Ukraine. badda madow inay tahay khatarta ugu weyn ee amniga. xiisadani ayaa ku soo beegmatay iyada oo madaxweynaha Russia Vladimir Putin uu walaac ka muujiyay furitaanka shirka amniga caalamiga ah ee Moscow ee ku saabsan waxa uu arko xoojinta awoodda military ee NATO ee ku sii kordhaya Crimea iyo taageerada ay siinayaan dalka Ukraine. dhanka kale wasaaradda difaaca ee Britain ayaa ku shaacisay barteeda Twitterka in aan wax digniin ah loo jeedin dalka Russia, iyadoo ku nuuxnuuxsaday in maraakiibteeda Royal Navy ay si fudud uga sii gudbayeen biyaha badda madow dhanka Ukraine si waafaqsan sharciga caalamiga ah. xogayaha gaashaandhigga Ingiriiska
Ben Wallace ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in maraakiibta wax burburiya ay si caadi ah uga howlgalayeen transit ahaan oo ay soo gudbayeen kuna sii jeedeen dhanka Georgia iyo badda madow. dhanka kale madaxa shaqaalaha Russia ayaa sheegay mar uu ka qayb galay shirka amniga caalamiga ee Moscow in siyaasadda nucleyeerka ee Ruushku tahay mid difaac ah, waxaana ku tilmaantay qayb ka mid ah istaraatiijiyadda difaaca ee Ruushka.